bulshada isku keenayo isagaa kasbaday kalsoonida dadka kulmiyo warida مسؤولينta xisbiga kulmiye ee degmada Laascaanood ayaa saaka xariga ka jiray 26 xafiis sidoo kale waxa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay soo dhaweyn ballaaran loo sameeyay kooxda fanaaniinta ee baraaruga kuwaas oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani munaasabadan oo boqolaal taageerayaal oo xisbiga kulmiye ay isugu yimaadeen xarunta dhexe ayaa waxa lagaga hadlayay sidii taageeradooda iyo xuduudda ay u muujin lahaayeen xafiisyada la furan ee uga mid noqon lahaayeen xafiisyadii hore uga furan xisbiga kulmiye ee degmada Laascaanood waxaana si weyn loogu mahadnaqay ururada himile iyo horyaal ee gobolka Sool kuwaas oo xafiiska dhexe ee xisbiga kulmiye uu ku leeyahay xuduudooda iyaguna si weyn ugu soo bandhigay كامبين بلارن ee ka socda gobolka Sool iyo degmooyinkiisa si ay u muujiyaan xuduudooda iyo codkooda iyo taageeradooda ayuu wiilkiin u baahan yahay maanta wadanku wuxuu ugu baahan yahay inaynu soo saarno mar labaad xisbiga kulmiye si uu si aan qaado horumarka meesha uu marayay si aan qaado xisbiga kulmiye عبد الرحمن الشيلوي وعارو شيغينا gobolka Sool ila uu yahay xisbiga kulmiye hadii Allah awood u ogolaado maalinta doorashada ayaa la inaga rabaa inaynu muujino ilaa Laascaanood iyo gobolka Sool ay xisbiga kulmiye xisbiga calaamada cagaarku waxay ku suntan tahay waa barwaaqo iyo dhaqan iyo bulsho saaf قول بين وجهنا العالم كبير على ستة وشاشر بينه كأنه سكب العلم صعب aniga ku hadlaya afka dhalinyarada ee horyaal waxaan taageero buuxda u haynaa iyo cudiga garab la garab taaganahay xisbiga xaakimka ee talada haya kulmiye anagoo ku raacin wax qabyaalada ama wax lacag ee ku raacnay hore markay waxaad hiigsanaysiin waxaad hal isleedahay hoggaanka iyo geediga aadan hore u rarin ka sii fiirso oo hubisahan iyo ku guur hadaf kulmiye kooxda baraarug laga bilaabo maanta iyo maalmaha soo socda waxay la hawlgeli doontaa oo si rasmi ah uga shaqayn doontaa xaakimka weyn waxay ka mooday waxba ma aragto waxa ma jiraan dadku waa la waanayaa marka waxaan loo taaganahay xarunta gobolka Sool ee xafiiska santarka xafiisyada xisbiga kulmiye hadda waxaan soo dhaweynayaa hadalka dheeray beelaha subeera wal u baantay fushin inay codkooda gurigooda iyo qalbkooda heesta baxaysa in laga baqtiyo ana ku tagay kooxdii ugu dambaysay wadana ka soo gashay ee uguna cuslayd ee abwaanadii mufakiriin tahayd ee baraarug oo maanta xaflad loo qabtay soo maaha xisbiga kulmiye wax qabadkuu ka qabtay magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool guud ahaantii loo sameeyay wax wada iyo laamiyo midna ayuu noo sameeyay dhakhtaruu noo dhisay iskuuluu noo dhisay badan muu noo dhisay waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay dhalinyarada reer Laascaanood haween dhalinyaro odayaal inaanu taageersanahay go'aankii shalay ay ku gaadheen odayaasha reer Laascaanood fudishadii guud ahaanteed ay kula galeen xukuumadda kulmiye waanu taageersanahay
casho kadib inay bilaabmaan ololaha xisbiyada doorashooyinka Somaliland.